wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxa ay ku cambaareysay wakiilada beesha caalamka mowqifka ay ka qaateen go'aanka halka dhinac ah ee golaha shacabka labada sano ay u kordhiyeen maamulka madaxweyne Farmaajo. Hanjabaadyo ku saabsan cunaqabateyn lagu soo rogayo shakhsiyaadka caqabada ku ah qabsoomidda doorashooyin nabdoon iyo wada hadallada ayay ku qeexday kuwa u adeegaya ururada argagixisada iyo weliba nabaddiidka. xukuumadda Soomaaliya oo xal u weysay dheelitirka marxaladda kala guurka ayay wasaaraddu ka dhawaajisay inay taageerayso ku darsiga sharci darrada ah. hogaamiyayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa ay ku eedeysay inay caqabad ku noqdeen wadaxaajoodyada iyo weliba dhaqangelinta heshiiskii 17 Sebtembar oo xeerinayay in doorashooyinka soo aadan ay noqdaan kuwa dadban. sida ku cad qodobka 47 ee dastuurka meelgaarka ah ee Soomaaliya, golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu awood u leeyahay inuu soo saaro sharciyo gaar ah oo qeexaya xeerka quseeya doorashooyinka heer federaal ayay raacisay bayaanka oo noqol ka mid la soo gaarsiiyay Nation Media waxaa looga been abuurtay maamulka Galmudug iyadoo lagu daray liiska maamulada taageeray muddo kororsiga walow mas'uuliyiinta Galmudug ay ka soo horjeesteen. inkastoo aan ka mahad celinayno walaacyada saaxiibadeena caalamiga ah ee ku aadan xasiloonida iyo weliba nabadgelyada Soomaaliya, haddana waa wax laga xumaado in markhaati laga noqdo oo ololeynta mabaadi'da dimuqraadiyadda oo ka gaabinaysa taageerada himilooyinka dadka Soomaaliyeed ee ah inay ku dhaqmaan xuquuqdooda dimuqraadiyadda ayay tibaxday. qoraalka waxaa la sii raaciyey bayaanada xanafta leh ee ay ku raran yihiin hanjabaadaha ee wax u dhimaya madax bannaanida siyaasadeed iyo weliba xuquuqda madax bannaanida ee hay-adaha qaranka waxa ay keliya u adeegi doonaan dhiirigelinta ururada argagixisada iyo weliba kuwa nabaddiidka ah ee ka jira Soomaaliya. si kastaba maamulka madaxweyne Farmaajo waxa uu muuqanayaa mid isku dayaya inuu iska caabiyo cadaadiska iyo weliba diidmada caalamiga ah ee ku aadan muddo kordhinta 2 sano, balse ma cadda inta gabaadka uu ku sii jiri doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cabdishakuur Maxamed Maxamuud, warbaahinta Nation, Muqdisho.